السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كلنتي وعنا وداعسن كلن بسم الله الرحمن الرحيم. داود الكوسة داود محطة أنا قصدي الله هذا قصدي شيء كذا هذا وقت ده خليني ساي 1 2 3 أكشن. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة أفريقيا في اكشن كده أكشن ولا الصحابة عاد أوكي أنا قراية. لا زب السلام عليكم. كان حديث حديث مقرر. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دواء داود على كسر دواء مركز البرنامج كنا ما ديسك أسبوعه وحين عاوة عيدين هينا أنا إذا سوق بين دونا شيكوين حصة قراحة أنت بله وحين كسر قلنا هاي بلو نايل هوتيل وحكي على سامي ستريت وعم تقاط كعاء خروج بينه في دي أما نص دبي بلو نايل أنت شيكوين كإبرامج شو شيء قد قالين waxaan soo dhaweyn doonaa ama garabkayga midig fadhiyo walaalkay marna saaxiibkay marna heritarkayga Cabdifataax Xasan waxaan leeyahay walaal soo dhawow dadweynaha xawaasid aad u mahadsantahay Cabdirasaaq mar labaad soo dhawaada barnaamijka Madaysiga Isbuuca sheekan idin hayaa leh gadaal idin kugu dhigi doona laakiin sheekadeeda ka hor waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo walaalkay gacantida midig fadhiyo xanad duraan oo ah curiya misal abuur Soomaaliyeed waxa barnaamijka nagala soo qaybgalay soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim aad ma santa Cabdifataax waa dhawahay sida sheegtay magacaygu waa Hanad Duraan Muuse adaan ku sii daro magac saddexaad neenaas ahaan loo yaqaan curiya duraan barnaamij aad u xiiso badan waa barnaamijkan hadda ka hor aan daawan jiray Cabdifataax wax yar oo qosol aan ku darsaday aad ka hor waxaan daawadaa barnaamijka masraxa furan oo Ajax baan daawadaa Muqdisho mar baan jeclaa barnaamijkaas inaan tago Ajax hadduu daawanayo iyo asxaabtiisa insha Allah Muqdisho mar dhan baa ka digi doona barnaamijkaas ka heesi doona ama ka gabi doona marka barnaamijkaas muxuu ahaay aad geen doonto muxuu ahaay masraxa furan bilowgeeda hore ma noo sii taaban kartaa niyow bilowgeeda hore inama taaban karo day waa hadiyad aan dadkaas u wado haddaan wax in kaga sheego Allah anagana teena bas laga dhaco ka baqaynaya waa in laga dhacay waxba dhici kar moogta dawaayahan dambe waa la isbaloogay moogta dad haagareenay marka barnaamijkaas macnaha barnaamijka soo qaatay waxay ahayd awlor waa daawan jiray laakiin caawa la daawada ah miyay ahayd bas la daawada kala socon jirtay bartiisa awal hor barta YouTube kan kala socon jiray Fatax Kamal hadda laakiin insha Allah ana la igala socon doona marka wada socosho wanaagsan miyay ahayd Soomaaliga saxda marka aad u dhawahay waa ma santihiin adiga iyo teamkaaga aad ku sharafta badan Cabdifataax marna waa saaxiibkay marna waa kaameramankenaga weyn marna waa macallinkayga sidoo kale waana ku dhawahay barnaamijka aad baan u mahadsantahay aad u mahadsantahay Hanad mar labaad mar saddexaad soo dhawo sheekadeeda gadaalan u dhigayaa bal Cabdirasaaq wax sheeko ma haysa okay asaga taada ku horeyn tii anigu waa u dambaysa dadka maxamed marsiis ما ninka asaga soo alaabis gadaal ma dhigan ana waa idin soo hormar marka maskiinka ninka ana feer weyn horumarka u dirmay laga naxo adana u dheer meesha jar waa idin ku qaatay sheekada caawayno hayo ama sheekadan doonayna dadweynaha la wadaago asxaabteena daawadayaasheena horta marka anaga Soomaali nahay qiimaha iyo rubaamaya marka wadanka joognay mana qaan wax la romantic ama romance loo gasol la garnay misha saddexdeena ma fadhino aniga aan ku jiray romantic sida loo yaqaan ama romantic adiga ma tahay adaan ka bilaawaya abaan waa ma santahay romantic dadku isku si uma yaqaanaan qof si u yaqaana romantic ana waxa badan lagu yaqaana dadka Hindida ah lagu yaqaana filmada dhiga lagu yaqaan laakiin romantic waxa la yiraahdaa qofku sida aniga kale u aqaano kale anigu waan diyaarsanay in cid iiga horeyso malan ma romantic aad weyn adigana asal la qabaa harooga sax waa diyaarsantahay aad weyn boqolkiiba hadii marka daawin diyaarsantiin macallin horta ku sharaxi kari taada dhinada teeda miyay wali xogaada liibaroya galaaska dhaxal labaad ma saddexaad ma la saabdiga ana hormar weyn ma kama sameeyay qalin jabinta yar waa idin wacaya ma qaljoon anta qaljoon ma مع الأورس تين على الأورس واحد قلجوز ما روماتيك علم نقانا ما روماتيك قلجوز ما أوكي شكاد عروسي قاله إن هذكر
markii laga soo tago Soomaaliya qurbaan la yimaado waxa arkaysa dad ajaanib kala duwan markay wada marayaan garabka is haystaan ama gacmaha is haystaan amaba si qurux badan u socda u sheekaysanaya ama wada isku dhunkanayo anaga markaas Soomaaliya wadanka joogno waxaas meenan garanay sama waxaan naqaanay naya hebla waxa soo qaad qeysasada waxa salaalku alada wax ma ogole wax koob oo kale cilada soo keenaysa ana geelka cabno waa kala ma hadana cableen ariga aan soo miskiinka aan leeyahay kuwa la saliida hoos u dhigtaa dhigi karaa dadka saliida hilibka ana geelka wax kala ma sheekada marka waxa u dhacaysaa markii laga soo tago wadanka Soomaaliya la imaado qurbaha ka qaastan wadamo Yurub oo kale ama Ameerika oo kale maalin ma kamid waxa dhacday وشكل اللي وده ممكن عن شاقة ولا اللي وده يقف أي شيء من يناقص قبع عدانه أساس سعودين وحي وصعدان بلبا استاجين حجاير نينكي ناقته وأوبا بوتاسي معناها وحسكدي سنين كوحنا أقصنا تقوله أبي يلو ده باش في عيسى لكي عندها أنا ما سكين وقياس قطعني ممكن نرجع عن قاطع حسلي هاي ولا أنا مكان دبرك رجع عنه قادان وعسكر أنا سيدي كنت اللي أما جبر رجع عنك هو قادي والبعيد نجاس محله تقربت سينا كان كان جاسي مركز أعرفك أنتوا ده قفصوا حاجة مركو جوي قصنا قضوا في عنادي وحيري أن بيبي وسرانك ما حد عاي كعنت ما حكودي واي إيدي شيء أبا هي لا اسكموا على حيتري بيبي حفيرنا جعلك عادي خفت هركل أجيها reaction حتى واحد قرفتنا حناق قصيجها سنة ست يقولك معناه وحي هذا هذا كنا خلنا ست وحير بيبي واحد يقول جعلها هاي بعد ربع شذا وحنا كمان هاي وحيت حفيرنا جعلك كوكبه كرر لقه بالمعنى السي أفاري أنا كان أسكسي هذا السي والله كاقي فيلم كان وحضونا كخلاص حوص مع المرولي حليمة كرتاجن جورا داونا سبوا جور سمالا داونا سمالا تقانو كوبي عنكنا سماه أبا ليش كيو سوكو بيس فارح جوري جوج عن قل كدرجي جوري جوج معوس الحين تلا والله تسحبك شكل سحبك من كلا والله تجي رحمه عليه ممكن Soomaali ana xaas keen ama ninkan qabo magaciisa oo dhaqan uu ma dhigi karto inuu hal macaan ku dhawaaq karto ay xishooday marka anaga sanad ba ku faanay bibi dhahno wala bibi wax kale oo garna aniga bibi waxa dhaqan ilma xafaayad loo xiro waxaas ma wadana gabdhaha magaca xataa uma yahay bibi xafaayad oo garna shakhsiyada ilma ba baaska loo xiro magaca xataa wala kala xishooda bariyahano ninkan wuxuu leeyahay tii carruurta dhashay kii waa sheegada حتى عبد مجرته علي حليم تصبنت معها مركا عرفك وصباح حيري حاسك ما تمحق وعسام حاسك قدونا حوي ماده ما يصير وحي ود برك دغيس ورب معناها ما انت waxba soo hel waxba soo gaaray ka dhigeyso abawlo markuu soo hor istaago hay markuu dhaxay indhaha ka qabo halkaas goos indhaha ninkii maasqato ku darna ka caday hadii ninkan aan gilib gelo soo cunay maskaxda oo foorta 190 hoos oo maskaxda inta uu nasto muku fiicnaa duuri maxay ma dhiin wuxuu yiri haa biriska markaas rab wala kala qabo sheekada markii sugayso qoftan beebi maxaa ka wadaa beebi waxay noqotay sama dhishtaan in ka soo kacdo dhiiq waxay wadnaa shaqada kombiyuutarada inay ku soo kacdo marka dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed 190 ana gilka iyo gilib gilka maxaa dhacday saliida badsada leena ay saliid ma fruudka waay fruudka ay markaani wadan su'aashaas adiga sheekada sidaan su'aal ka soo bixin adiga kugu soo wareejiyo hadaad ahaan lahayd wiilkaas arbaxda lagu dhuftay maxaad sameyn lahayd iyo horta haddaan dhaho waxbaan sameynaya hadda adeer xisaab badan xisaab badan qadamay meesha sano joogto laakiin ma ka qan gaaro hadii wixii asaga ma la wixii iska imaadaan guur gaaro ba arkayna hadii la yiraahdo dadka in asxaabteena ugu xiran ragga su'aal baan weydiinayna dumarkana su'aal ka gooniyaan weydiinayna hadii la yiraahdo ragga waxaan weydiinaynaa hadii macnaheedu xaaskaaga mise saaxiibta ay darbaxa kugu dhufan lahayd ay tijaabinayso muxuu ahaayay heerka aad ka gaarsiisatay xaggeeda mise xushmadaad u hayso maxaad sameyn lahayd oo waxba soo binin sidii ninkaas oo kale darbaxada kugu dhici lahayd oo kale gabadhana waxaan weydiin lahayn haddii darbaxadaad ku dhufatay laga aarsan lahaa maxaad soo bin lahayd meesha barnaamijka ku dhamaan lahaa mise xal kale ka duwan baa jira wixii aad noo haysaan oo muxuu ahaayay jawaabo ah hoos aad nagula soo sheer garan kartaan commentiga barnaamijka intaan soo gabagabeyn ka hor waxaan jecelahay inaan la sheer gareeyo mikrofoonka mar iyo labo walaalkeen Hanad oo nala joogo hadduu sheekahayo inuu nala wadaago Hanad soo dhow waa mahadsantihiin dhammaantiin sheeko aad u qosol badan uuna noo sheegay saaxiibkay ani sheekada nii hayo waa sheeko ku saabsan xaafadda islii ciyaalka islii iyo askarta
bilaa sharciga ciyaalka isliyo sharci laanta ay askarta habeen waxa dhacday sheekada waan sii guda gale habeen baa waxa dhacday xariib baa casheeyay si fiican u casheeyay pizza iyo chips iyo alaab ka dhargano xabadu soo kaxaystay si fiican u casheeyay waxa la yidhi iska ma galin snacks ka adiga uu xambaartano sagal kuma garatid qaadna waa wada doob dhan baa si fiican u dhargano caloosha buuxsada bas qaadna waa wada xariifkan marka marqaanka meesha u dambaysa maraysaano marka hormaraysa taqsiib markuu malaynaa saan inuu ku dhaxtaa waa laga yaabaa moogta marka bas full waa indiisa xariifkan uu baxay soo u sii orday wuxuu deganaa section 3 waa meel cabaar u jirto islii qolay dabcan qofkii aqoonin waa xaafad kamid ah islii marka soo u sii socday wuxuu galay askar dhalinyar qabsanaysa buu dalaq u yiri inta isku jirno kale u jirsaday meel kala abtana malaha wuxuu sameeyay ma garanaya xariifkan marka uu fikiray dawoona marqaansanaa isla markii maskaxdiisa waxa ku soo dhacay inuu dhagoolnimo gashto dhagoolnimo gashto oo bilaabano ee gacmaha kor u taago waa lagu fahmo marka xariifkii marka lagu fahmay buudka dambe la galiyay صح gaarigii nimanka xaysay qofusteen dhalinyar kale la sii ka kacaysto wixii laga qaadan karo laga qaatay waa la sii daayay 7 saac 4 saac baa la qabtay 7 saac habeenimo dhalinyar inta la sii daayay waxa la yiri ba askari wuxuu yiri nani hana pesa tumwachilia u dhahay yaan lacag haysan oo sii deynaa afande mimi u taagay ninkii dhagoolka marka askarigu waxa naaqay hadar caawin dhagoolnimada noo jileysay filinkaana maxay tahay hadana waxaan oo keentay darbaaxa lagu qabtano bac lagu sii gadaal oo ka neefsado marka askarigu intuu qosle oo sii daayay askarigu intuu qosle oo dhahay adeer waa diyaarsan tahay khayr laagsi oo iska bax marka aad ma santiin dhamaan asxaabtana daawanayso barnaamijkeena intaan ku soo gabagabayn doono haddii la yiraahdo intaan ka gaari doono barnaamijka xigo haddii jiraan sheekooyin anoo heesaan oo aad nolosha sheegaran kartaan commentiga sidoo kale waxaan xasuusinaynaa inaad channelka subscribe gareysaan muxuu ahaa saad ugu xirnaataan barnaamijyada aan soo wadno fadlan share gareeya commentigina aad muhiim noogu yahay inaad nala soo share gareysaan waxa sheekaysaan intaan ka gaarayna barnaamijkan uga faa'iideysto waxay ka dhaxgalay Cabdi Fataax oo aad maasan waxaan rabaa sida daawadayaashaada inaan u sheego Cabdi Fataax waa saaxiibkay marna waa macallinkayga marna waa kaameramankeena marka waxaan rabaa taageerayaashiisa inaan u sheego barnaamij waxaan soo wadaa aniga abwaan curiyaale Curiya Durana ku magac dheerahay sida uu markii hore barnaamijkan ila sheegay barnaamij waxaan inii soo wadaa insha Allah su'aalo ah oo ku saabsan hal xiraale waxa la dhahaa kaftanka maansada iyo hal xiraalaha insha Allah waa in la soo sheegareyn doona oo barnaamijka adinka in soo weydiin doona markaas ra'yigiina reactionkiina qaab bixintiina arki doona insha Allah aad ma santahay waa ka dhaxgalay dibanaad ma santahay barnaamijku xiga inta ka gaari doono waa anagoo idin leh nabadgelyo habeen wanaagsan maalin wanaagsan waxay idin tahay mar kastaba commentigiina waa muhiimada sheekooyin muhiim noo heesaan nala soo share gareey intaan ka gaarno barnaamijka xiga waa anagoo idin leh romantic la wada noqdo